السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتي مالك استا دونك جوجتان واسيكي oo idin leh isku soo noqod wanaagsan oo waliba xiiso leh waxaan ku rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay sidaan anigoo caafimaad qaba hortaada ugu soo laabtay waa yahay muuqaalka aan rabo maanta inaan ka hadlo waxa uu yahay run ahaantii muuqaal naxdintiisa iyo layaabkiisa iyo fajiciisa wata haddaba waxaan rabaa in yar inaan muuqaal yar isla daawano. Allahu akbar. waxay ahayd dhacdo xanuunkeeda wadata oo ugub ku ah degmada Cabudwaaq kiiska kufsiga iyo dilka leh ee maanta hadalhayntiisa ay sida weyn u saameysay dadweynaha ku nool degmada Cabudwaaq waa la u naxariistay marxuumad Ubax Maxamed Yaxye oo ahayd 17 jir marwa ah waxaana ay isu diyaarinaysay dhismaha qalgalkeeda sida uu ii sheegay saygeeda waxaa loo mudaysnaa in farxadda dhismaha arooskooda uu dhaco bilowga sanadka soo socda waxaana la sheegay in ay lahayd uu 3 bilooda qoyska ay ka baxday marxuumad Ubax oo aan tagnay ayaa waxa uu ku yaalaa daafta waqooyi ee degmada waxaana ka jiray dareen murugo leh annagoo la qaybsanayna xanuunka ayaa waxaan la kulanay hooyo Xaliimo Axmed Khaliif waa marxuumadda hooyadeed waxaana ay noo sheegtay in gelinkii dambe ee shalay xaaba ay dab ku shitaan ay ugu dirtay baadiyaha aysanna ka soo nabad noqon hooyo Xaliimo iyo qaar ka mid ah ehelada oo soo helay meydka marxuumadda subaxnimadii hore ee saaka kadib markii ay raad goob ku sameeyeen waxa ay nageysay goobtii uu falku ka dhacay ayna ka soo heshay meydka gabadheeda waxaan nimid halkii ugu dambeysay nolosha Ubax Maxamed Yaxye Ubax waxa halkan yaala dharkii ugu dambeeyay oo ay wadatay markii hooyadeed ay ka soo tagtay sida hadda hooyadeed ii sheegtay halkan waxa yaala waa go'eedii ay hogogneed xaabadii ay guraysay ayaa intaan oo dhan daadsan halkan waxaa saaran waa taakadii timaha madaxa ugu jiray labadii kabood oo ay wadatay bartii yaalaan waxaa kaloo halkan yaala sida ay idiin muuqatay juwaankii ay ku soo xaaba doonatay iyo surwaalkii runtii waxay muujinaysaa caddeyntan halkan inaysan gabadhu naf kala tigin ayay muujinaysaa sidoo kale waxaa yaala meeshaan dhiiggeedii iyo dhacaankeedii ayaa yaala hooyo Xaliimo Axmed Khaliif oo murugaysan ayaa nooga warbixisay iyadoo dul taagan goobtii gabadheeda lagu dilay yaa ku weeriyay socdaalkeeda halkan صدق ويلك قبل أبيض بقول سعودي مركي هالكان تبيد سادرين قبل نقول وحبا وقاعد سنقضي لكن هذا مركي هذا محمد الله كان بقول مركي من دعف وصدق قاعد مرتاح كاتفتي كان من عبريت استنقال كيف تاسبلي maxamed xuseen guuleed oo ahaa aabaha dhalay wiilka qabay gabadhan dhimatay ee marxuumadda ah kuna jiray diyaarinta arooskeeda oo loo mudaysnaa bilowga sanadka soo socda ayaa isna waxa uu nagula hadlay goobta lagu aasay kadib wayna bilaysnayd waa gabadhaas wuuna kufsaday gabadhaas soo dhageed baana uur bay lahayd haddaan rabin la aroos aad iyo aad baan isku bedelay shucuurteeda hadda saacaddan waa kacsanta xaaladdeedii aniga hadalkaygu midna masaxsan markay meydkeeda ayadaan isku duway meydkeeda maryadan ceshay waan isku duway waxaan raadiyey oo isku taxallujiyey ninkii inaan baadi goobo raadkiisa meesha yimid dabagalay waxaan ugu tagay guribuu galay taliyaha saldhigga degmada Cabudwaaq dhamme Farxaan Xuseen Xasan ayaa soo bandhigay eedaysanihii ka dambeeyay dilka iyo kufsiga gabadha marxuumadda ah oo ay laamaha ammaan maanta soo qabteen bismillaahi raxmaani raxiim ninna tuunsana ah oo lagu eedeynayo dil gabar xaalad doonatay oo bannaanka magaalada uga baxday muddo ilaa iyo saaka aan ku daba joognay oo raadkiisa aan qaadnay oo go'iisii iyo kabihiisii iyo guriguu galay iyo ilaahay meeshuu deganaa waan gacanta kusoo dhignay waxaan ku helnay go'aas gadaashiina ka muuqdo waa go'ii uu xalay waday kabihii uu watay oo uu tuuray raadkii badnaa oo uu iska daba wareegay gurigii hooyadiisa oo galay markuu ka baxay meesha gabadha uu ku kufsaday raadka aan ka qaadnay guriga hooyadiisa uu galay saa u daba joognay dusha koru aaday ilaa mar dambe ilaahay maadiis waxaa abaa kusoo guulaysan inaan qabano magaalada dhexdeeda laga soo layaab iyo amakaag layaab iyo amakaag intuu leegyaa waa aragtaa waa isaga ruuxiisa ah xitaa qof dhalinyaro ah kufsay iimaanka laga qaad kufsayba muxuu ku keenay sidii xoolihii
intuu madaxeeda saa u dhigo inuu bireeyo ma maqlaysa odayga sodogeed ah gabadha waa 17 jir cunug yar waay ilmo waay 17 jir waay 17 jir waliba uur leh uurkeeduna yahay 3 bilood oo dhawaan la guri geenayay macnaha waxa u fahmay dad iska maaragtay yara tabaalaysan ay ahaayeen adiga waxa lagu jiray oo loo tabaabusheynayay in maaragtay la aqal geysto uur 3 bilood lahayd waa 17 jir waa ilmo intuu kufsaday ayuu bireeyay midii mariyay haddaba waxaan baaq iyo codsiba u soo jeedinaynaa dadka noocaan oo kala ah falkan argagaxa leh sameeya si ay u yaraadaan kuwa kale iyagana ku dhiiran lahaa mustaqbalka waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya dawladda sharafta leh qaybaheeda kala duwan hadda dhacdadan waxay ka dhacday Caabudwaaq gobolka Galgaduud sida hadda maaragtay askartii aan arkaynay ciidanka maaragtay noogu sheegayay in ay hayaan qofka waxaan ka codsanaynaa meel kasta oo Soomaaliya dhacdo ceenkan oo kala ay ka dhacdo sida qofka dhacdada geysta ee arxan daradan hadda arkayseen waa ilmo waa cunug yar 17 jir teenager haddana uur siile uur bay leedahay ka waran 17 jir waay oo ilmo ah oo adduunba weli ka u joogin haddana lagu yiri uuray sii leedahay 3 bilood oo uura bal ka waran xaraamiga intuu kufsaday ayadoo uur leh kufsaday 17 jir uur leh xaraamiga kufsaday ee haddana qowracay ilaahay baan kugu dhaarshay ka waran waxaan ka codsanaynaa marka ciidanka sharafta leh in dil toogasho aan waqti dheer la siinin macnaha haddii aad ogaataan qofka uu yahay ee saxda ah in aydan sida dadka qaar waa is ognahay Soomaaliya aniga laangaara intayna ka galay waxaan ka codsanaynaa in sharciga inta la hor keeno waliba sida haddeertaan foolxumada leh uu sameeyay in dadka hortooda lagu toogto You don't know now. ayaan ka codsanaynaa si ay u yaraato qof dambe oo sidaan oo kale ku dhiirada inuu sameeyo haddii ay dhacdo kan hadda in bulshada la soo hordhigay hadhowna meeshu ku dambeeyay in ciqaabtiisa maaragtay uu muteysto aan dadka la horkeenin waxay noqonaysaa xayawaano kale oo isaga ka daran oo baala ah biri inay ku dhiiradaan intan mid ka daran inay sameeyaan haddaba waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh meel kasta oo dhacdadan ka dhacdo Soomaaliya in markii qofkii dhacdada geystay ee dhabta ahaa la soo qabto in inta la hor keeno dadweynaha ciqaabta loogu sameeyo dadweynaha hortooda fagaaro la sugu waco dadka si aysan ugu dhiiran mustaqbalka xayawaan noocan oo kala Israa'iil yahuudi kale oo kala waa fal kale oo kale aan ku dhiiranin si ay ugu noqoto dignin